بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أدبان وفرح سنة مانتا إنان كلمة يركز جديو وديار جروجا دورشوينكا نسيسارن جودي فلينتا يقولها ده أورك نقاطير الصومالية دوان لو بلنسية هي أوركن أو لا أساس مركوب رئيس كون سيال بقول سياشني سيالكي شان إلى 20 سنة هذا ديسان سنة كل حلا 20 نحن وجرا أرنت مدرس در أو ربع قرنية وهو قبته هولا دياد وين وجدد وين اللي قال لي هي وركان والله بقيبات إن أي نقطة حرون أي كوكلمان أمان ونقاطيرتا صوماليات أو هالكاي كهان كريمو حاجة قانتا جوكتينتا أو مريض قانتا ما continued medical education رأيجود اسكو دابسدان إسلامر كان لوجود دفاعه شرفته iyo maaragtay anshaxa dhaqaatiirta ayna noqoto afka ay ku hadlaan dhaqaatiirta oo hay'adaha kale shaqada ku leh sida wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed hay'adaha kale tacaalimiga jaamacadaha soo saara dhaqaatiirta hay'adaha cilmi baarista ay noqoto goobtii ama hilinkii ay kala soo xiriir lahaayeen runtii guddiga hadda soo shaqaynayay guddoomiyaha guddiga fulinta iyo guddoomiyaha golaha dhexe iyo guddigaba aad iyo aad ayaan ugu bogaadinaya muddadii gaabnayd oo hadda doorashadii hore iyo tan u dhexaysay ay waayeen xilhaynta iyo shaqada ururka waxay qabteen howlo aad iyo aad dhaxalgal u ah ay ka mid tahay xafiiskii ururka oo la habeeyey ay ka mid tahay qabashada aqoon kororsiga oo si joogta ay u qabtaan ay ka mid tahay shirweynihii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka sanadkii hore la qabtay xiriirada ay la yeesheen hay'adaha dawliga kuwaan dawliga ahayn runtii meel aad iyo aad u wanaagsan ayay soo gaarsiiyeen ururka waanu ku bogaadinaynaa waan ugu hambalyaynaynaa waxaan leeyahay marka beelweynta ama baahda weyn ee dhaqaatiirta waa in lagu baraarugsanaada in maaragtay ururka uu noo yahay muhiim qof walbana ay tahay meeshii matalaysay marka waa inaan dhammaanteen isku wacyigelinaa inaan ka qayb qaadanno oo diyaargarowga shirweynaha ururka dhaqaatiirta khidmadda yar oo qof walba lagu baahan yahay si shirku taabagalo la baxshaa isla markaana aan ka soo qayb galnaa shirweynaha marka la iclaamiyo codkeenna waa in aan ugu adeegnaa uguna helinaa jiritaanka iyo xoojinta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed aniga shakhsi ahaan waxay leedahay taariikh xusuus gaar ah maadaama aan goobjoog ka ahaa maalintii iyo waqtigii la aasaasayay ururka iyo xaaladii waaga jiray oo maaragtay foodada ahaa oo runtii ururku qabtay howlo aad iyo aad u weyn iyo muddadii uu soo jiray oo aan ka soo mid noqday guddiga fulinta dhowr jeer isla markaana aan guddoomiye ka soo noqday muddo 7 sano ah marka waxay leedahay qiimo gaar ah waxaan rajaynayaa dhammaan marka dhaqaatiirta hore u soo shaqaysay iyo kuwa cusubba in waajibkaasna saaran aan gudanno guddiga qabanqaabada doorashada guddiga hadda jira dhammaan waan ku bogaadinaya waxaan u rajaynayaa shirweynaha soo socda guul inuu noogu dhammaado isla markaana ay ka soo baxaan guddi fulin iyo golo dhexe oo halkaa ka sii wada geedi socodka iyo horumarinta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ujeedada weyn ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay hesho caafimaad tayo leh isla markaana ay ka heli karto meesha ugu dhow ayna awoodi karto khidmada ku baxaysa inay iska bixiyaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu